beeyay ee Ethiopia. ahaa Tafari Mokonnen waxaana uu dhashay 23 bishii toddobaad sanadkii 1892 aabihii waxaa la oran jiray Ras Mokonnen waxaana la taliye uu ahaa boqorkii xilligaasi xukumayay dalka Ethiopia. hooyadii iyo aabihiiba waxay ka soo jeedeen qoys aad u magac dheer oo la yaqaanay. Tafari Mokonnen ama Haile Selassie waxa uu helay aqoon gaar ah ama waxbarasho gaar ah waxaana si wanaagsan ugu dadaalay aabihii xilligii yaraantiisa. aqoontiisii gaarka ahayd iyo waliba garaadkiisii badnaa ayaa waxay soo jiiteen boqorkii xilligaasi ka talinayay Ethiopia oo la oran jiray Menelikhi labaad. taasi waxa ay keentay in si gaar ah uu u soo dhawaysto wiilkaasi yaraa ee xilligaasi la oran jiray Tafari Mokonnen waxaana la siiyay darajada Dejesmach markii da'diisu ay ahayd 13 jir. muddo gaaban kadib waxaa dhintay Ras Mokonnen oo ahaa aabihii dhalay Tafari ama Haile Selassie. sanadku markuu ahaa 1906 isagoo da'diisu ay tahay markaas 14 sano ayaa Tafari waxa uu noqday gudoomiyaha gobol ka mid ah goboladii Ethiopia waxaana uu aad u taageersanaa boqorkii ka talinayay Ethiopia xilligaas ee la oran jiray Menelikhi labaad. waxaa sidoo kale uu goboratoore ka noqday dhowr gobol oo kala duwan oo gudaha dalka Ethiopia ah sanado yar gudahood waxaana xilligaasi uu sii waday waxbarashadiisa. markii uu dhintay Menelikhi labaad sanadkii 1913 ayaa waxaa xilkii boqortinimada loo caleemo saaray wiil uu awow u ahaa boqor Menelikhi labaad oo la oran jiray Lijyasu kaas oo la wareegay xukunka boqortooyadii Ethiopia sanadihii u dhaxeeyay 1913 ilaa 1916. laakiinse Lijyasu markii uu qaatay diinta Islaamka uu noqday qof Muslim ah ayaa waxaa soo wajahay mucaaradad aad u xooggan taas oo kaga imaanaysay kaniisadihii dalka Ethiopia iyo madaxdii kale ee kula jirtay maamulka dalkaasi Ethiopia oo xilligaasi isaga uu u ahaa boqorka. waxaana aakhritaankii lagu qasbay in uu isaga tago xilkii isagoo si qasab ah xilkii looga wareejiyay. dadkii mucaaraday xilligaasi Lijyasu waxaa ka mid ahaa Tafari Mokonnen ama Haile Selassie. sanadku markuu ahaa 1916 ayaa waxaa si qasab ah xilkii looga qaaday Lijyasu oo ahaa wiilkii uu dhalay boqorkii hore ee Ethiopia Menelikhi labaad maadaama uu noqday nin Muslim ah. waxaa xilkii awoodda boqortooyada dalka Ethiopia loo dhiibay gabar uu dhalay Menelikhi labaad taas oo magaceeda la oran jiray Zawditu. waxaa arintaasi aad uga shaqeeyay Haile Selassie. Zawditu ayaa waxaa si rasmi ah loo boqray bishii Febraayo 11 sanadkii 1917 waxayna u magacaawday Tafari Mokonnen ama Haile Selassie inuu noqdo gacan yaraheeda aadka ugu dhow. waxay u dhiibtay mas'uuliyado aad u waaweyn intii ay haysay xilka dalkaasi Ethiopia. waxa uu maamulayay inta badan dalka Ethiopia marka laga reebo in go'aanka ugu dambeeya ay lahayd boqoradii Zawditu ee uu dhalay boqorkii Menelikhi labaad ee dalka Ethiopia. maadaama uu ahaa Haile Selassie qofka ugu badan ee maamulayay dalka Ethiopia ayaa waxa uu helay magac iyo sumcad aad u ballaaran waxaana soo jiitay dadkii Ethiopiaanka ahaa horumarkii uu ka sameynayay dhinaca horumarka dalka iyo waliba siyaasadihii uu ku maamulayay dalka Ethiopia. dadkii Ethiopiaanka ahaa waxay u arkayeen nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo dhiig cusub galiyay boqortooyadii Ethiopia ee gabowday. waxaa sidoo kale uu maanka ku hayay
sidii Ethiopia ay ula macaamili lahayd dalalkii caalamka xilligaasi. aakhritaankii waxa uu ka shaqeeyay in Ethiopia ay ku biirto ururkii la oran jiray League of Nations sanadku markuu ahaa 1923 waxaana xilligaasi Haile Selassie uu ballan ku qaaday in uu joojin doono adoonsigii dadka. sanadku markuu ahaa 1924 Tafarri Mekonnen waxa uu ku dhiiraday inuu u baxo safar dibadaha ah waxaana uu noqday maamulihii Ethiopiaanka ahaa ee ugu horeeyay ee u safra dhinaca dibadaha. wuxuu maray dalal badan oo caalamka ah oo uu ka mid ahaa dalka Mareykanka waxaana arintaasi sii qurxiyay warbaahintii reer galbeedka oo xilligaasi aad u hadal haysay hogaamiyihii Afrikaanka ahaa ee ugu horeeyay ee booqasho ku mara dalal ka mid ah dalalka horumaray. sanadku markuu ahaa 1928 waxaa geeriyootay Zewditu oo ahayd boqoradii Ethiopia oo xilligaasi gacanyaraha uu u ahaa Tafarri Mekonnen waxaana xilkii si toos ah ula wareegay Tafarri Mekonnen waxaana si rasmi ah uu isugu magacaabay inuu yahay boqorka boqorada waxaana uu la baxay magaca Haile Selassie oo hadda adduunka looga yaqaano. Selassie waa magac af-Amhari ah waxaana uu u turjumayaa awoodii saddexda ilaah taas oo ah mid ay aaminsan yihiin masiixiyiinta oo ay ula jeedaan ilaah subxaanahu wa ta'ala nabi ciise iyo maryama calayhim assalaam. muddo gaaban kadib waxa uu bilaabay inuu dib u habeyn ku sameeyo dowladdiisii iyo sidoo kale dastuurkii u yaalay boqortooyadii Ethiopia waxaana uu sii xoojiyay awoodiisa. waxaa sidoo kale uu wax weyn ku soo kordhiyay boqortooyadii Ethiopia isagoo xilligaasi aad u ballaariyay dhinacyada waxbarashada iyo ciidamadii booliiska ee boqortooyada Ethiopia ay lahayd. isla sanadkaasi uu ku dhawaaqay in uu noqday boqorka rasmiga ah ee Ethiopia lana baxay magaca Haile Selassie ayaa waxaa Ethiopia soo bartilmaameedsaday faashistihii Talyaaniga ee la oran jiray Benito Mussolini. dagaallo badan oo dhex maray ciidamadii boqortooyadii Ethiopia iyo kuwii Talyaaniga ayaa waxa ay ku guuleysteen Talyaanigii inay gacanta ku dhigaan dalka Ethiopia intii u dhaxaysay sanadihii 1936 ilaa 1941 boqorkii Ethiopia Haile Selassie waxaa xilligaasi uu ku qasbanaaday inuu isaga baxsado dalka Ethiopia uuna u cararo dhinaca iyo dibadaha. waxa uu muddo ku sii hakaday dalka Ingiriiska oo taageero uu ka rabay ka hor intii aanu aadin xaruntii ururkii la oran jiray League of Nations ee dalka Mareykanka halkaas oo uu doonayay inuu ka cambaareeyo duulaankii Talyaanigu uu ku qabsaday dalka Ethiopia isla markaana taageero uu uga helo dalalka caalamka gaar ahaan kuwii xoogga lahaa xilligaasi oo boqortooyadii Ingiriiska ay ugu horeysay sidii loo xoreyn lahaa Ethiopia loogana saari lahaa Talyaanigii ku soo duulay ee xoogga ku qabsaday dibna loogu soo celin lahaa boqorkii Haile Selassie. Haile Selassie ayaa xilligaasi waxa uu isku dayay inuu ka qudbeeyo shirweynihii ururkii la oran jiray League of Nations isagoo doonayay in uu ka faa'iideysto xilligaasi oo ururka uu ka doodayay una qabatayn saarnayd dowladdii Talyaaniga waxaana Haile Selassie xilligaasi uu damacsanaa in halkaasi uu ka qudbeeyo si aan cunaqabataynta looga qaadin Talyaaniga looguna qasbo in uu ka baxo dalka Ethiopia. markii hadalka la siiyay Haile Selassie waxaa sugayay journalistayaashii ama warfidiyeenadii ka socday dowladdii Talyaaniga kuwaas oo maaganaa marka hadalka uu qaato in ay carqaladeeyaan ku buuqaan ku fooriyaan sawaxana ku sameeyaan si aanu u helin fursad uu ku hadlo. arrintaasi waa ay dhabowday oo markii ugu horeysay ee makarafoonka uu la wareegay Haile Selassie ayaa waxaa buuq iyo sawaxan iyo foori isku daray wariyaashii Talyaaniga ahaa ee ku sugnaa xaruntii League of Nationska ee dalkaasi Mareykanka. buuq iyo sawaxan ayaa la isku daray aakhiritaanna leyrkii ayay damiyeen meeshii oo dhan waxay noqotay meel mugdi ah. arrintana waxa ay u dhacday sidan soo socota. kelmadda ugu horeysa aad maqli doontaan waa Haile Selassie waxa ka dambeeyana waa wariyaashii iyo ergadii Talyaaniga ahayd oo buuq iyo sawaxan isku daray.
Monsieur le Président, Monsieur le ciidamadii ayaa farageliyey oo leyrkii daaray sidoo kale mar labaad ayay sawaxankii bilaabeen leyrkiina damiyeen dadkii arbushka waday waxaa markii dambe si qasaba meesha kaga saaray ciidamadii ilaalinaya ammaanka ee ku sugnaa xarunta ururkii la oran jiray League of Nations. Haile Selassie ayaa markaas fursad u helay inuu sii wato hadalkiisii oo dhamaystirto. የሚገባውን ትክክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቀርቤያለሁ። ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መበታተኑን ስላወቁበት ነው። calacalkii iyo catawgii iyo codsigii Haile Selassie waxa uu ku dhacay dhaga xiran codayntii ayaa dhacday waxaana talyaanigii uu ku guuleystay in laga dalka Ethiopia kadib ayaa ciidamadii u dagaalamayay boqortooyada oo taageero badan ka helay boqortooyadii Ingiriiska oo hub ku taageertay ayaa waxa u suura gashay in ay ka saaraan Talyaanigii gudaha dalka Ethiopia waxaana mar kale Haile Selassie uu ku guuleystay in awoodiisii uu dib u soo celiyo boqortooyadiisiina ay dib u maamusho dalka Ethiopia kadib markii laga saaray ciidamadii Benito Mussolini ee dalkaasi Talyaaniga Haile Selassie ayaa mar kale sii waday horumarintii uu ka waday dalka Ethiopia waxaana horumarin uu ku sameeyay dhinacyada bulshada ganacsiga iyo waxbarashada sanadkii 1955 waxa uu soo saaray dastuur cusub waxaana uu dib u habeeyay awoodiisii isagoo si buuxda gacanta ugu wada qabtay maamulkii Ethiopia oo dhan inta kadib waxa uu bilaabay inuu safarro ku tago dalalka caalamka sanadku markuu ahaa 1966 waxa uu booqasho ku tagay dalka Jamaica halkaas oo si aad ah loogu soo dhaweeyay waxa xilligaasi halkaasi uu u tagay inuu u soo duceeyo dadka reer Jamaica oo xilligaasi roob la'aan aad u badan ay haysatay waxa la sheegaa in markii uu halkaasi tagay ay ka da'een roobab mahiigaan ah taas oo keentay in dad badan oo Jamaican ah ilaa maanta aan joogno ay caabudaan Haile Selassie shaqooyinka kale ee waaweyn ee lagu xasuusto Haile Selassie waxa kamid ahaa inuu mas'uul ka ahaa aasaasitaankii ururkii la oran jiray OAU oo hadda loo yaqaano AU waa ururkii midowga Afrikaanka oo lagu aasaasay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sanadkii 1963 halkaas oo markaasi ay ku aasaaseen 32 dal oo kamid ahaa dalalkii xorta ahaa ee qaaradda Afrika waxaana ururkaas loo aasaasay sidii uu u xoojin lahaa midnimada qaaradda Afrika iyo sidii looga shaqayn lahaa in Afrika ay midowdo waxaa sare u sii kacayay sumcaddii iyo magacii uu ku lahaa dalka Ethiopia qaaradda Afrika iyo guud ahaan caalamka waxaana uu noqday hogaamiye muddo aad u dheer ka talinayay boqortooyadii Ethiopia laakiin laga bilaabo 1970 Ethiopia waxaa soo food saaray hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah shaqo la'aan heerarkii dambiyada oo sare u kacay iyo boqortooyadiisii oo daciiftay waxaa sidoo kale dalkaasi Ethiopia ka dhacay xilligaasi abaaro aad u ba'an 1974 waxaa ku caasi garoobay qaar ka mid ah madaxdii ugu dhaweyd iyo ciidamadii boqortooyada kuwaasoo qaarkood ay ahaayeen ciidamadii gaarka ahaa isaga uu lahaa waxaana aakhritaankii ay ku sameeyeen afgembi geliyeyna xabsi guri halkaas ayuu ku jiray muddo sanad ah iyadoo aakhritaankii sanadku markuu ahaa 1975 lagu dhawaaqay in boqorkii Ethiopia uu geeriyooday waxaa xilligaasi xukunka dalkaasi la wareegay Mengistu Haile Mariam isagoo sheegay in boqorkii uu u geeriyooday xaalado caadi ah
laakiinse baaritaan goor dambe la sameeyey ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu u dhintay kadib markii neefta lagu dhajiyey oo la ceejiyey amaba barkimo wejiga laga saaray oo neefta lagu dhajiyey ilaa uu ka geeriyoodo. muddo badan lama hayn xitaa muuqaalka meydkiisa iyo meeshii uu ku dambeeyey ilaa xilli dambe aas looga sameeyey magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia. dad badan oo ku nool gudaha Ethiopia iyo dalka Jamaica oo ay ku jirto xaaskii heesaagii caanka ahaa ee reer Jamaica Bob Marley ayaa aaminsan diin la yiraahdo Rastafarian ama diintii Rastafari oo ay ula jeedaan Haile Selassie iyagoo caabuda kelmadda ras waa eray amxaari ah oo macnihiisu uu yahay boqor. intaa ayayna kusoo gabagabowday taariikhdii boqorkii ugu dambeeyey ee Ethiopia Tafare Mekonnen ama Haile Selassie.